وبه نستعين على أمور الدين والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزير كحيينك قلها برلمان كجبلان سياسيين هر جبلان كل هروسي جوغي يسياسيين تلوسو كردي باحد يموغ له وياشا دقنكا هوايين كنا شرفت بدن ururka dhalinyarada saxaafadda ciidamada qalabka sida ilaalada noo haya ee nabadgelyada ku saxanayna ee nabadgelyada iska leh dhamaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi shirkan waa shirki adogeydeen oo noo sii socday, waa shirki muddo dheer la sugayay, waa shirki uu noo daahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, waa shir ay leedahay beeshan reer sade, waa shir aayaha looga tashanayo, waa shir midnimada looga tashanayo, waa shir israaca looga tashanayo, waa shir la rabo inay ka soo baxaan wax miro dhal ah oo beesha dhexdeena miro dhal u ah, beelaha deegaankana miro dhal u ah, dowlad goboleedka Jubbalandna miro dhal u ah, isla markaas Soomaaliya miro dhal u ah. maxaa wacay qoyska hadduu asagu hagaago qabiilka hagaagahaya, qabiilka hadduu hagaagana qaranka hagaagahaya. macnaha intaas wey in annagu aan u hagaagno beel ahaan reer sade waxaa ku hagaagaya beelaha deegaanka Jubbaland, waxaa ku hagaagaya Jubbaland, waxaan ku hagaagi doonaa Soomaaliya oo dhan insha Allahu tacaala. markay saas ahayd shirka 20 bishii loo daahfurmay waa tii aan hadalladana xoogooda u hambaynay siyaasiyiin naga maqnayd hordhacooduna ay noo yimaadeen daraato oo uu hogaaminayo siyaasiga محمود سيد آدم وكملها سياسية محمد أول واحد وتقانان عبد البراء وقد مخرج جوه جداها كورنيل إسماعيل بلاك أبو تقانان إسماعيل بلاك فعيو أبو تقانان ونكان مدو وماشي فرديو سياسية عبد الغني شعال الديني وكملها عبد الرشيد علو وكملها وسياسيين تكملها إيوه حبك لتو الله سعودي ومركان لأنه مركز سياسيين بحد يمقله وقرنسان وحيكسو دورين شركان وحيرالك أهايين ودافرك سواء فرسما ومركو وزيرك كشنقري إذا هريي بيكون مغنايين دباتكم مغنايين علاقكم مغنايين وحيكون مغنايين بلهن نوصي فرو وإن كده مانينا نورا همبية ولكتين أنه همبيني وأمر الكوع العليني رجل نيش خوش ولي سياسيين بنو مغن وحاولي كوشي أتكلسنا والله إنه سياسيين كلو رسلنا ومغيه ونمان دونان واحد بات مجران ملاحظة معامل كتشبلان وملاحظة كوعيان كوغور ريو حلبانة سرادينتا والرغب بالشدة لما انت مضان كسوق يبقى الشيء شركان والصحافتنا كانت تاهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انت وحينوطها فرصة وين والناسي ديارسين وإن كوكرا ورقة ظنو إذا كيانا ورهنو أجندها يا برنامجك أنك يوتشبلان مدة دير أن كود هاليني وهاجرتي حلا هران نمت أفر ويجان شغلي فرصة أن نسكو وريسنا وندكوس وهنا وندكوس بقلنا وحنا كود هاليني مدعين سبب تودع ويدنا وهاي هدارين قبيعة gooni baa rag badan oo salaadiina iyo gabdho badan soo aragnay, laakiin magaalada Kismaayo waxgaradka rag iyo dumar leh iyo aqoon-yahanada reer sida ku nool fursadan oo kale uma helin. mudan yaali marweyn arrinta maalinba heer bay joogtaa. bishii 8aad sanadkii naga tagay saa la socotaan shir baa doolow ka dhacay.
shirkaas oo ay dowladda Itoobiya iyo urur goboleedka IGAD iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo markaa ahaa maamulkii ku meel gaarka ahaa ee Jubba madaxdiisa ugu sarreysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradooda yaan ku yeelannay. waxaan ka wada hadalnay waxay ahayd war Jubbaland cusub tii hore oo ku meel gaarka ahayd iskuma afgaran, waa ku kala qaybsanayn, dalka iyo dadka waa la wada leeyahay, aragtiyihii iyo fursadihii aan wax ku wada dhisan lahayn maana helin, wadooyin baan kala qaadnay. mabdiyan Jubbaland cusub wada leenahay xalaal ah aan wada hirgelinno oo aan isku raacno. markaa madaxweynaha weli lama dooran oo baarlamaanka ma ayna dooran, laakiin waxaa jiray dastuur iyo baarlamaan ka haray maamulkii hore ee ku meel gaarka ah Jubbaland. dabcan baarlamaankana in lagu dul shaqeeyo wixii ka qaldan laga saxo, dastuurkana lagu dul shaqeeyo wixii ka qaldan laga saxo, madaxweynena la doorto, markaana maamul aan wada leenahay in la dhiso ayay ujeedadii dhammaan waxaan ku heshiinay ahayd. 7 qodob baanu ku heshiinay. annagoo taa daba soconna ayaan annagu halkaan nimid, madaxdii Jubbaland baan ka wada hadalnay, waan isla fahamnay, waxaanu isla garannay inaan halkaa ku hakinno oo raggii kale iyo gabdhihii kale oo gudaha iyo dibadda ku noolaa oo annaga aan isku aragtida ahayn inaanu raadinno. madaxweynaha Jubbalandne mar haddii asaga la doortay uu halkaa ku hakiyo uusan maamulkii dib u dhisin ilaa khilaafka annaga inaga dhexeeyo la hadlayo. wax walba waxaa la rabaa inay idin caddaadaan. annaga dib baan u noqonnay, waxa afka qalaad lagu yidhaha ritiriid baan samaynay mar haddaanu aragnay niyad wanaag uu madaxweynaha iyo madaxdii Jubbaland oo isku duuban ay noo muujiyeen oo ay doonayaan in la heshiiyo, waxay hore u qabteen wixii ka dhimanne lala saxo. mar haddaanu ogaanay nagana aqbaleen dastuurka oo markaa madaxweynaha siinaya 21 casho inuu dowladdiisa ku soo dhiso, baarlamaanku uu weydiistay in dib loogu dhigo si khilaafaadka loo xalliyo. mar haddaan niyad wanaagga aragnay, qodobadii aan wadnayna intooda badneed aanu isla fahamnay, dib baanu noqonnay si intii annaga aanu isku aragtida ahayn oo beesheenna ah, rag iyo dumar, waxgarad oo aan wada dhaliilsanayn nidaamka halkaan ka dhismayey iyo siduu ahaa, si aan u qancinno oo annagoo dhan arrintaasaan ugu qayb qaadanno ayaan dib ugu laabannay. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. aad iyo aad buu maxamuud sidii u mahadsan yahay. haddii waxaa la yidhi haddii ninkaa codkarsan uu qaato hadalka wax kuu dhimanba male. hadda waxaan ka hadlo ma garan karo, sababta waxa weeye midigna uu ka dhigay, bidixna uu ka dhigay, dhexdana uu ku dhufto. aad buu u mahadsan yahay, u mahad celinaya. dhammaan waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka, golaha wasiirada, baarlamaanka, saraakiisha, siyaasiyiinta, hooyooyinka, dhalinyarada, bahda saxaafadda, odayaasha dhaqanka, iyo cid kasta oo sharaf leh oo fadhida meeshaan ayaan salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib, mudanayaal iyo marwooyin, soomaalidu waxay tidhaahdaa hadal lamana badiyo lamana bi'iyo. nuxurkiisu wuxuu ku kooban yahay inta maxamuud siid uu yiri uu ku kooban yahay. anigu waxaan ku darahayaa 2 qodob oo yaryar baan ku darahayaa. 2 qodob waxaa weeye, kow, markaan doolow heshiiska ku galnay oo aan la galnay xukuumaddii xilligaa jirtay oo ay goobjoog ka ahayeen dowladda Itoobiya iyo IGAD, oo aan qodobadii uu maxamuud sheegay aan ku wada hadalno isla aqbalnay. waxaan soo aadnay ragganagii oo joogay markaa Muqdisho joogay, gobol baan u dhignay, waa wada hadalnay. waxay diideen meesha inuu shir ka dhacay, sideeda shir baan u ka dhacay diideen.
wadahadal iyo dood dheer kabacdi 11 shir baan galnay kabacdi waxaan isla ogolaanay in daafur ay helaan oo Axmed la kulma oo asagaasi ay arkaan oo ku qancaan mooyinaysan cid kale oo fadhiga imaado inuu ku qancay arrintii baan sameynay Axmed baan u yeernay waxaan la hadalnay horta qoladii garbaari joogtay marka madaxweyne ku-xigeenka iyo ragiisi waxay joogaan garbaari qoladanadii groupkana kalena waxay tageen garbaari aad baa la isaga horyimid annagu sidaasaan marka ku soo baxno ku nimid meeshaan Kismaayo ku nimid walaalka Maxamuud uu faahfaahiyay baan galna runtii aad baan isu afkaran